daawade halkan waa M252 kusoo dhawo muuqaal kale bal ka waran haddii aan ku iraahdo waxaad ogaan kartaa diyaarad kasta oo hawada duulaysa xogteeda ha noqoto diyaarad dul haabaysa hawada sare ee qaaradda Afrika, Asia, Europe, Australia, Mareykanka ama meel kaleba waa xaqiiq oo dabcan waxaad xitaa si fudud ku ogaan kartaa diyaarad kasta oo dul maraysa magaalada aad markaa joogto ama dalka aad markaa joogto waxaad ogaan kartaa diyaarad kasta oo duulaysa magaalada ay ku socoto magaalada ay ka timid shirkadda iska leh ama ay u kiraysan tahay diyaaraddaas duulimaad nambarkeeda waqtiga ay soo duushay iyo waqtiga la filayo inay caga dhigato madaarka ay markaa u socoto sidee ay taas macquul ku noqon kartaa ayaad isweydiinaysaa malaha sax balankaaga jawaabo diyaaraduhu waxay leeyihiin qalab lagu tixraaci karo meesha ay diyaaraddu marayso haddii uusan qalabkaa ciladoobin waxay diyaaraddu bixin kartaa meesha saxda ah ee ay markaa marayso iyadoo xogtaasna marka hore ka helaysa satellite-ka si gaar haddii aan kugu sheego waxay diyaaraduhu adeegsadaan tiknoolajiyadda loo yaqaano ADSB oo laga soo gaabiyey Automatic Dependent Surveillance Broadcast oo u suuragelinaya inay marka hore la xiriirto satellite-ka kana hesho xogta goobta ay markaa dunida kaga sugan tahay GPS ahaan kadibna diyaaraduhu waxay xogtaa la wadaagaan dadka dhulka jooga gaar ahaan macaamiisha si ay u ogaadaan halka ay markaa diyaaraddu soo marayso waxay la tahay inaad waxoogaa ka fahantay hanaanka iyo habka uu u shaqeeyo systemka tixraaca diyaaradaha ee ADSB waxaa xusid mudanse in diyaaradahu awood u leeyihiin inay qariyaan xogta goobta ay ku sugan yihiin inta badanse diyaaradaha ganacsiga ma qariyaan xogtooda balse kuwa militariga iyo diyaaradaha khaaska loo leeyahay way qariyaan sidaa darteed waxaad kaliya ogaan kartaa inta badan xogta kumanaan kun oo diyaarado ganacsi ah oo hawada duulaya fadlan ila tijaabi oo qaybta hoose nagula wadaag xogta diyaaradda aad heshay iyo meesha ay duulayso anna dabcan waan kula wadaagi doonaa waxay la tahay inaan ku dheeraaday bal aan kula socodsiiyo ama aan kuu sheego habka aad u tixraaci karto ama aad u ogaan karto diyaarad kasta oo hawada dulmaraysa xogteeda ila soco aan gudaha u galay waxaa jira habab kala duwan oo loo tixraaco diyaaradaha duulaya ee hawada ku jira waxaa jira website soo aruuriya xogta diyaaradaha ee duulimaadka ku jira isla markaana kugu tusin kara maabka dunida diyaarad walba iyo halka ay markaa joogto ayaad arki kartaa inkastoo marka website-yada ay badan yihiin laba website ayaan kaa tusinayaa oo aniga aan si fiican u tijaabiyey waxaan ku hormarayaa website-ka ah Flightradar 24 sidaad halkan u jeedo waxaa ii muuqda maabka dunida dabcan waxaa sidoo kale ii muuqda dal walba iyo diyaaradaha dul maraya dabcan update-kii ugu dambeeyay hadeer 2021kii waxay ku soo dareen in helicopterada qaar xitaa halka ay marayaan ay ku tusin karaan haddii aad sida geesaha u socoto waxaad arki kartaa dal kasta qaarad kasta iyo tirada diyaaradaha dul heehaabaya ama dul maraya dalalka qaar dabcan diyaaradaha dul maraya aad ay u yar yihiin iyo qaaradaha qaar tusaale ahaan haddii aad timaado dhanka iyo Afrika waxaad arki kartaa in diyaaradaha dul maraya ay aad u yar yihiin halka marka la tago Europe iyo Asia saro kale markii la tagana diyaaradaha dul maraya aad ay u badan yihiin waa kumanaan kun dabcan bal fiir hadda qaybtan oo kale waa Europe qaybtan hadeer aad u jeedo diyaaradaha maraya ma xisaabin kartid aad ay u badan yihiin marka haddii aad rabto in diyaaradaha dul heehaabaya meesha aad mid ka mid ah xogteeda hesho waad heli kartaa tusaale ahaan hadeer diyaaradan dul maraysa Algeria kale haddii aan taabto diyaaradan waxay ka soo baxday sidaad u jeedo Istanbul Turkiga waxayna u socotaa Lagos hadeer waxaan imaanayaa tusaale ahaan dhanka iyo Europe oo diyaaraduhu aad ugu badan yihiin waan soo zoom garayn karaa sidaad u jeedo diyaaradan weyn ayaan taabanayaa diyaaradan waa Qatar Airways ayaa laga leeyahay ama Qatar ayaa laga leeyahay waa Qatar Airways diyaaradda
duulimaad numberku waa QR702 waxay ka timid garoonka JF Kennedy ee magaalada New York waxay ku socotaa Doha. Route-ka ay soo martay xitaa waad arki kartaa xariiqda balfiiri meesha ay duulimaadkeedu meesha uu soo maray. duulimaadkeeda halkaa ayuu soo maray dabcan waa duulimaad aad u dheer duulimaadkan. haddii aad rabto inaad diyaaradan xog fiican ka hesho duulimaadkan waxaad kaliya qaadaysaa flight numberka kadibna waxaad geynaysaa Google-ka ereyga flight ayaadna ka daba marinaysaa sidaad u jeedo. inter marka aad tiraahdo bal fiiri maxaa ku soo baxay diyaaradda iyo xogteeda oo dhameystiran. diyaaradan January 23keedii oo shalay ay soo baxday. sidaad u jeedo xitaa waxay ku sheegi kartaa ama Google ku sheegi karaa in diyaaradan waqtiga loogu talagalay ay kasoo dib martay arriving late. waxaan kasoo gudbaynaa marka Flight Radar 24 waxaan usoo gudbaynaa website-ka kale ee ah Flight Finder. dabcan labadooda iyo kuwa kale oo badan xitaa application ay leeyihiin. application-kaas ayaad soo degsanaysaa dabcan markaa duulimaadyada iyo xogtoodana halkaas ayaad kala socon kartaa adigoonan u baahanin inaad website-ka booqato. aniga hadda computer ayaan kaga jiraa laakiin adiga mobile-kaaga waad ka geli kartaa xitaa website-yada. kaliya Google Chrome-ka ama meesha aad website-yada ka gasho gal isla markaana website-yada labada mid aan ku sheegay mid kamid ah gal tijaabi. haddeer marka waxaan usoo gudbayaa planefinder.net. isagana sidaad u jeedo maapka oo faahfaahsan ayuu ku tusinayaa. kadibna diyaaradaha iyo sida ay dunida u marayaan ayaad arkaysaa. diyaaradda aad markaa doorato xogteeda halkan ayaad sida kii hore oo kale aad ka heli kartaa. diyaaraddan oo kale Aeroflot ayaa la yiraahdaa. waxay ka soo baxday Moscow waxay u socotaa London. duulimaadkeedu weli waa u socdaa dabcan. duulimaad numberkan marka haddii aad soo qaado flight numberka SU2578 haddii aad soo qaado oo aad Google-ka keento ereyga flightna aad ka daba mariso dabcan sidaan hore kuu tusiyey oo kale. bal fiiri waxaad arki kartaa diyaaradda magaceeda flight numberka halka ay ku socoto weliba halka ay haddeer marayso. waxay ka soo baxday Moscow waxay u socotaa London laakiin duulimaadka weli ma aysan dhammaystiran meel dhexe ayay sii maraysaa London ayay si ku dhowdahay. marka sidaas ayaa duulimaadyada dunida oo idil ula socon kartaa si fudud weliba. fadlan haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada ha ilaawin. ugu dambeyntii isku day fadlan inaad tijaabiso. dabcan waa xog xiiso leh inaad diyaaradaha duulaya la duusho ood xogtooda ogaato. aan ku weydiiyo ma tijaabisay diyaaradee ayaad xogteeda heshay nala wadaag fadlan waayo maanta hawada sare ayay ka shidan tahay. ha ilaawin sidoo kale inaad hoos ugu sheegto saaxiibkaaga qaaska ah inaad hadda kadib la socon doonto xogta diyaaradda uu raaci rabo ama ay raaci rabto. sidoo kale maxaad ka qabtaa inaad nagu soo biirto haddii aadan ka mid ahayn asxaabta IM252 waa intaasoo aad ka heshaa muuqaalo xiiso leh sida kan oo kale. aan ku macsalaameye inta laga gaaray muuqaalka xigay badankii nabadgelyo.